taageerayaasha musalsalka Habboon meel walba ay joogaan xalay waxay ahayd habeen ay u taalo tacsiyo kadib markii uu mid ka mid ah roolasha ama karakterada loogu jeclaa musalsalka ee Abu Ducaale u geeriyooday. Muuqaalkan waxaan iskula fiirinaynaa sida horta arintaasi xalay bulshada ay u qabsatay ama ay uga falcelisheen iyo sidoo kale wax qabadka cajiibka ah ee ka muuqday xalqadii 18aad ee taxanaha Habboon. Soo dhawaada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان صاحب شرفت بدن سوداد مركل سوداد مقال كله ولكن صاحب كنا اسمه وسوي channel كاس دو كله فيسبوك بيج كا هوس برو مركل waxaan kula kuma santaa daawashada muuqaalkan aad daawanayso iyo waliba waqtigaaga qaaliga aad ku bixinayso. Shasha Galaxy waxaan u doortay sida uu sahlan yahay iyo sida uu dhaqso badan yahay. Okay, marka aan ka bilaawno markii loo sheegayo akhbaarta familka reer Ducaale sida ay noqonayaan reaction kooda. waxaa laga bilaabay maamada waxaana la saaray drum ama durbaan garaaca wadnaha oo kale ah qaabka wajigeeda uu yahay cajiib waa nice focus pulling حرسنا sidoo kale waa cajiib isna marka akhbaarta uu maqlay sida ma aragtay uu isku bedelay okay laakiin marka uu xirsi uu ordaayo dabcan waa lagu jiraa wajigiisa xogaa falaad uu noqday sida markii hore uu kacay oo kale maahan okay ya Habboon reaction keeda marka loo dhigo qof yani ka naxday waxa xirsi loo sheegay oo waqti xaadirkan aan ogeyn waxa dhacay way u egtahay واو لكن جعفر عجيب يعني ماشي uu joogo sida uu ma aragtay dadka carra iyo waxa uu arkay una ogeen wax socdo asna booskiisa si fiican uga soo baxay fiirmada واو جمال عجيب يعني رياكشن كيس انما عادي ما استرنا sidoo kale ayadana caadi maahan okay عم والغير عم لا قدرتها نوفذ مريم inta la qorayo filimkani runtii waxa cajiib ah in badan qoraayaasha markaasi inay u fiirsadeen waxyaabaha detailska hadda uu kamid yahay odaygan markaasi Abu Ducaale saaxiibkiisa xaaladan oo kale marka ay noqotay sida uu meesha u yimaaday yani waxyaabo oo waxa waaye adiga haduu maqnaan lahaa hada la isma weydiin lahayn laakiin inuu joogo oo meesha la keenay yani wax badan ay ku dareysaa wixii ay waxay ka dhigaysaa more realistic okay marka hadda dhankan ahaan waana loo soo koobay waana loo soo gaafshay Habboon hadda already way ogtahay waxa dhacay oo waa loo sheegay sida loo soo gaafshay loo kadgareeyayna anaga ku darsanayn in loo sheegay jawaan ka dareemayna laakiin waa meesha dadka yani aad iyo aad kay u dareemeen inta la ooynayso la ooyday inta kalena si fiican ay u dareemeen okay waan ka xunnahay intaan dadaalnay tiira bayaa u timid marka Ducaale waan waa markii saddexaad aan u maleynaya hadda aan fiirsanayo laakiin mar walbana intaasi waan dareemayaa marba marka ka dambaysa dabcan isbedel uu jiray hadda isbedel hadda marka ay noqoto marka inaan falanqeeyo ama aan ka hadlo laakiin markii xalay ugu horeysay aan daawanayay filimka aad meeshan aan u dareemay waana waxa la rabo markaas inay dhacaan qofka aado film sameeyaha aado qof oo yani waxaasi baanan wax ka ogeyn oo sheekadii markaas u daawanayo si caadi ah wixii inuu qof walba dareemi karo ma aragtay marka dadka ay wada taaban karto hadii ay qosol tahay ka wada qoslin karto hadii ay murugo tahay ka wada murjin karto waa waxa dadaalka ugu badan loo galsho waa waxa u baahan
aqoonta iyo farsamada waa waxa u baahan in si fiican loogu fiirsado si fariinta markaasi ay u noqoto qaabkii markaasi la rabay inay u gudubto oo dadkana ay u dareemaan. Marka haddii aan wax yar dib ugu soo laabano, yacni wax walba sida meelahooda loo kala dhigana sidoo kale waa maaragtay la yaab. Tan ugu muhiimsan oo ah Habboon iyo Xirsi iyo dee gabadha kale oo markaasi isla soo socday, ama Habboon haddii aan tusaale ahaan ka soo qaadano, waxay la soo istaagaysaa ayada iyo Xirsiba akhbaartii oo dhakhtarka markaasi uu sheegi rabo oo uu dhihi rabo odagii waa uu geeriyooday. Marka waxa oo cajiib ah Habboon wejigeeda sida uu noqonayo. Marka haddii aan hadda aan ka tago Habboon ahaan aan Ashwaaq ahaan aan maaragtay aan iraahdo Ashwaaq, yani gabadha matalaysa maaragtay doorkan siinkan weliba shotkan meeshan sida uu wejigeeda noqonayo waa priceless. Yani wejigeeda waxa uu noqonayaa waxaanan caadi ahayn oo kale, sida inay wax ku mergatay oo kale ay noqonaysaa, yani inay qaadi weydo hadalka darteed. Marka qofka baxay inta uu ula ekaa ayada waa sida aan ku dareemi karno anaga, yani sababtoo ah mar waxa uu ahaa dee qofkii soo koriyey oo booskii waalidkeeda ugu jiray aabaheeda, mar wuxuu u ahaa raadkii ay ku heli lahayd reerkeeda, marna dee waxaba la dhihi karaaba yani waxay ahayd sababtiisa maadaama uu isaga ayada uu soo socday. Marka saddexdaas wax oo la isku daray, yani reaction markaasi uu dhigmo dhanka oo maaragtay waa uu ka yimid Habboon. Farshaxanka guud ahaan galay meeshan inagoo welibana aanan arkin xitaa Aba Ducaale oo maaragtay dee sariir jiifo ama xaalad ku jiro emergency mise dee marka dee hadba waa sida markaasi loo soo bandhigay intaas oo dhan anagoona arkin oo ay noogu dambeysay markuu mootobajaajtu ku dhex jiray, ayaa haddana dee farshaxankan waxaa loo sameeyey markaa in sidaasi dadka ay ku dareemaan aan ku dareenno, waana waxa dhacay. Marka maamada sida madax u qabsatay, Xirsi suu derbiga marka uu u feeray, iyo Jamaal sida uu markaasi meeshiisa u istaagay, qof walba yani sida uu karakterkiisa ahaa reaction u dhigmo oo kale ayaa loo sameeyey. Xalqadii 18aad weliba siinkan oo maaragtay tacsida ah aad iyo aad haddii ay noqoto jilaayaasha bandhigooda, haddii ay noqoto directorka, dhammaan tiimkii hawsha wada qabtay, sidoo kale editorada hawl fiican ay qabteen. Sababtoo ah intaan hadda aan daawanayno oo daqiiqadahaasi ah ama sekemadaasi ah waa shaqo badan iyo waxqabad badan oo runtii la isku geeyey oo in badan lagu laabtay, la fiirshay, wax walba maaragtay muhiim ahayna markaasi laga soo saaray oo laga soo jarjaray. Marka waxaan leeyahay hambalyo. Waxa markaa aan u leexanaynaa dhanka iyo maaragtay marka la waayo character film ku jiray oo kale, marka laga waayo ama uu ka baxo, iyo dadka maaragtay falcelintooda, iyo dhanka Soomaali ahaan marka aan nahay sida markaasi aan xalay u falcelin. Horta anigoo og in dadka ama taageerayaasha filmkani ku xiran ay aad u badan yihiin oo mar walba rikooro cusub dhigayay, haddana sidaas ay tahay marka xalay Facebook aan soo galay, dadka kasoo falcelinayay oo geerida maaragtay dee karakterka ama roolka Ducaale Facebook kusoo boostgareynaya runtii aaday u badnaayeen. Xitaa dad oo aan isdheheen ayaa waxaan arkay ayagoo markaasi soo boostgareynaya. Marka sawiradii iyo tacsidii markii ay isqabsatay oo dadka dee kolley filmka la socday markaasi ay u tacsiinayeen maaragtay dee karakterka filmka ka baxay, ayaa dad kale oo waxaa jiray dee kolley ma filmkay la soconin ama maaragtay dee ma isleelayn ma garanaye oo ayagana si dhab ah markaasi ugu soo tacsiyeynayo maaragtay dee yani qaabkaas oo kale ka dhigay. Marka horta in film Soomaali ah oo yani sidaas uu dadka u deeqo oo maaragtay dee dareenkoodana weliba uu qabsado waa wax cajiib ah. Haddii aan nahay dee bahda filmaantana waxa waa runtii aad iyo aad aan ugu farxeenahay. Taasna markaa waxay dadka tusaysaa in sheegidda markaasi aysan ahayn keliya buug ama wax afka laga sheego, laakiin sida markaasi filmna loo soo gudbin karo dadkana ay u taaban karto. Midda ugu dambeysa ayadana markay noqoto in film taxana ama serie ah uu ka baxayo role muhiim ah, siyaabo kala duwan uga baxa, laakiin saddex oo kale hadda markaan ka soo qaato mid waa midda xalay dhacday oo kale oo qof filimka markaasi muhiimka ahaa oo dadka jeclaayeen dee sheekada filimka markaasi ku timid in qofkaas hebel iyo hebel xilligaas marka ay tahay filimka uu ka baxaya ama uu geeriyoonaya ama si kale kule uun waxbaa ku dhacaya ama waa la weynaya oo kale ay noqoto, dadkana markaasi dee u saameyso filim ahaantii waxa intay filimka daawanayaan. Kow laba kale ayagana soo qaadan kara waxaa ka mid ah in dee filimka oo socdo qof maaragtay dee ka mid ah dadkii muhiimka ahaa ama heshiiskii uu halaabo ama waxay dhacaan. Mid kale ayadan waxay noqonaysaa oo tan ugu daran ah
filimkii oo socdo jiliinkiisa ama season inta maaragtay la gabagabeeyay season kale soo socdo ilaa intuu dhexaysay qofkii oo doorkaas matalayaba uu caadi u geeriyoodo marka taas oo kale marka noqonaysaa tan ugu daran taasna marka waxay dhibaysaa ama dhaawac ay ku noqonaysaa maaragtay guud ahaan taageerayaashii filimkii socday iyo sidoo kale xitaa production teamkii sababtoo ah dhibaatay ku noqonaysaa maaragtay qaabka filimkii uu socon lahaa iyo sida ay u bedeli lahaayeen marka dadkan waxay noqonaysaa in ay aad uga tacsiyayaan sababtoo ah dee qofkii filimku wadi lahaa iyo qofkii caadiyan ay u barteen waxqabadkiisa iyo siduu wax u jila ay barteen ayaa marka meeshii laga waayay marka anaga Soomaali ahaan waxaad moodaa habka xalay doorka Abducaali filimka ku dhex geeriyooday oo reactionka looga bixiyay ama looga falcelshay inuu yahay habka dadkan kale ee Soomaalida ka baxsan oo yaani maaragtay intaasoo sanado wadamadooda filmaanta ay matalayeen oo ay sameynayeen filmaantii la qabsadeen ay uga falcelinayeen marka filimkii oo socdo qofkii caadiga ahaa uu geeriyoodo marka isdhaaf oo kale noqotay waan la qabsan doonaa waa fahmi doonaa dadka hadda fahansan waa kaasa ku ayagana waa hawshooda marka guudaan marka la isku soo dardaro mar kale iyo sida mar walba aan muuqaal ka sameeyo iraadaba waxaan hanbal leeyahay bahdaastaan guud ahaan gaar ahaan tiimka Habboon dhamaantiin waa maasantiin inta muuqaalkan aad daawateen insha Allah inta muuqaalkan aan kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa nabadda